قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، وحسوسنا إنه إن ربي سبحانه وتعالى أعماشا inaga aqbalo. qofka muslimka ahi cibaado kasta uu sameeyo, ha noqoto soon ama salaad ama xaj ama sako ama sadaqo, cibaado kasta uu sameeyo wuxuu isweydiinayaa, rabbi ma kaa aqbalay mise lagaama aqbalin? walidaalik ayaa saxaabadii waxaa laga warinayaa caliy bin abi aalib inuu odhan jiray, layta shacri man ilmaqbuulu fanuhanniih waman ilmaxruumu fanucaziih. waxaa laga sheegaa cali inuu odhan jiray, talow waa kuma ka laga aqbalay oo aanu bogaadinoo hambalyayne, waa kee ka maxruumkii aan waxba laga aqbalini aanu tacsiyadayne. waxaa la sheegaa ibnu mascuud radia allahu canhu wa ardaah inuu odhan jiray, ayuha almaqbuulu hanii'an lak, ayuha almarduudu jabbara allahu musiibatak. inuu odhan jiray, kan laga aqbalay camalkow, hanii'an lak, bogaadin baa kuu sugnaatay, hambaliyaa kuu sugnaatay. ayuha almarduud, kan camalkii lagu soo celiyowna, jabbara allahu musiibatak, dhibtaada allaha kuu kabo, allaha ku kaalmeeyo. walidaalik ayaa caliy bn abi aalib radia allahu canhu waxaa kaloo laga sheegaa inuu odhan jiray, laa tahtamuu liqilati alcamal wahtamuu lilqabuul. camalka yaraantiisa aad ha uga fakerina, ee waxaad ka fakertaa, ma yahay camalkani mid rabbi kaa aqbalaya mise maaha? qur-aanka ilaahay wuxuu inoogaga warramayaa qisatu bnay aadam, labadii aadam dhalay ee ugu horreeyey oo qurbaan iyo acmaal saalixa sameeyey, oo midna laga aqbalay midna laga aqbali waayey, oo sababtay isku dileenba markaa ay taasi ka dhalatay. kii laga aqbalay wuxuu u sheegay kii laga aqbali waaye, ilaahayna uu qisadaasi ku tacqiibiyey, innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin. ilaahay acmaasha wuxuu ka aqbalaa kuwa rabbi kaga cabsada. idan waa wax warwar leh inaad acmaal la samayso kana cabsi qabtid in laga aqbali waayo, waayo aakhiro ilaahay dad buu sheegayaa camaashoodii la aqbali waayo, waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura. wixii ay camal sameeyeen ayaanu u soo horumarinay baa ilaahay leeya, waxaanu ka dhignay boodh la hurgufay ama la saydhiyey. siiga ama boodh haddii la hurgufo wuxuu noqdaa wax wada iska raaca oo aan wasni ama culays maas aan lahayn. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy, qul hal nunabbi'ukum bilakhsariina acmaala aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati اddunya wahum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunca. ma idinka waramaa kuwa acmaashoodii khasaartay, acmaasha dhankeeda kuwa khasaaray waa kuwii shaqeeyey ee moodaya inay wax fiican samaynayaan ee aan haddana la aqbalin. walidaalika acmaasha ilaahay aqbalayo sifaad gaaru ku sheegay, waman araada alaakhira
وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إلهي وحليه سبحانه وتعالى نك آخر الدنيا الشقد آخرنا قبطه وسعى لها سعيها شقد قبنا يأتي آخرتها وهو مؤمن والحال هو مؤمن عمل كايسقو قبنا يوم مؤمن يي كوا سعي قود يشقد ومشكور وكوا لوغا مهدنقه وكوا لغا أقبله مشكور نمد ومقبول نمو وكوا لغا أقبلي. هذا أيها الأحبة أعماشنا طاعة إنه صميننا كو إلهي وحبه وما كترته إحنا وما كرنسه لكن إنك هي وحنا ترتاه سوقت با إلهي وحله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه عندما هذا النغضاه ما هذا نقى بالمركز سيسقع اسكالب إلهي لي ومن كفر فإن الله غني حميد نكي قالوا بنا با إلهي لي إلهي وكدق طوما adigoo gaalana rabbi wuxuu yahay kulama hadiyo adiga kaagama baahna waxba. idan acmaasha waxa la inoo tilmaamaya inaynu inagu for ourselves inaynu danteena u samaynayno. sida awgeed qofka mu'minka ah isagoo camalka samaynaya ayaa haddana cabsiyay ula jirtaa oo isweydiinaya qurbada tan iyo qurbaadka kan iyo acmaashan sane aad samaynaysaa عند الله وحلا أقبل يا مطهي. عائشة رضي الله عنها وحيتدي نبي عليه الصلاة والسلام أيان آيات قرآن التفسير كده ويديني يا بيلاد وحيتدي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إلهي رسول كيسيو كو إلهي له والذين يؤتون ما آتوا كو الله إيمان يا مسبحين يا وحي بحين أيان iyadoo wa quluubuhum wajila iyagoo cabsanayo qalbigoodu cabsanayo kuwa wax sameeya haddana cabsidu ku jirtaa bay leedahay ilaahay rasuulkiisiiyow ahum aladiina yashrabuuna alkhamr wayasriquun wa kuwa khamriga cababa ee tuugadana sameeya ee waxoogaa camal wanaagsanna samsameyn ma kuwaasaa. nebigu wuxuu ku yidhi may laa ya binta sidiiq ina abi bakaray maya ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يصارعون في الخيرات. وكو أبو النبي عليه الصلاة والسلام سومية الصلاة كنية الصدقة الله إيمانية رب كعب صنية هدنا كعب سقبة أعماش إن لقى أقبل وايو أعماش إن لقى أقبل وايو. سؤال شو مركا وحي تاي عملك محل وأقبلها مركا إنه محي سمينه أيو عملك إنه مقبول يهي قور ما عملك الله أقبلها. إلهي قرآن كوحينا وقاقوا الرمية نبي أنبياء ذا كمدوا إلهي بريا يوله وأنا أعمل صالحا ترضاه. هو حنكابر يا إن عمل صوبان سمايو لكن بشرط عمل كاس صوبانو مدى رال لك تهيا مدى تقبل يسابو لي. أيها الأحبة صحة هي قبولك وحباو دحية عمل كوينو الصحي هي إن لا أقبلي وكلا لبا عمل كوينو الصحة وحو كحرين يهي وحي شروطي سيا واجبات كيسيا وحي ولهاي عام كهاي نقال نفقه وكو الرمي جري إنو وطه يعني قفك عمل كسبيين ومؤمن يهي كو كلبات إنو الشريعة دي وافق سيهي. ومثلا صلاة باتوكتي صلاة بالشروط هذه ريالته إن طهارة قبطه إن دويسة هذه قبطه إن قبلة دو تشيدو وحي كو أسيح جرتي هيئات كيدي أركان تيدي واجبات كيدي ندلتي ماضو كاسي وحو كان صدا قبول وحو كان صدا ما نجيدا صحة إنا يا صحة دي. أما إن لقى أقبل وحد يراضى بي أباهنت وايو أعماش قبول كيدو كو صحة وكو حرية صحة الظاهرة إن إذا شرعي وافق سنتي كو ويتي لكن وحي كالو أباهنتهاي وحا قلبي قاقا كوشيري خلاص يا إيمانين توليقي هاي إيا إناني تشيرين موانع
ama wax ishortaagaya oo kale oo aad samaysay. mithaal, nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo mawaanicda khaarijiga waxyaabaha camalkaaga diidaya in la aqbalo isagoo ka warramay wuxuu leeyahay mid baa gacmaha kor u taaga isagoo leh yaa rabbi yaa rabbi, rabbigayow isagoo leh, laakiin waa goortuu gacmaha taagayaa isagoo buu nabigu yidhi wama'kaluhu xaraamun wamalbasuhu xaraamun wagudiya bilxaraami, isagoo wuxuu soo cunayaa xaaraan tahay, wuxuu huwan yahay ay xaaraan tahay, wuxuu ku soo qadeeyay ay xaaraan tahay, fa annaa yustajaabu lahu buu nabigu yidhi, oo kaasee wax looga aqbalayaa. oo macnuhu muxuu tilmaamayaa maalan salaadda in la aqbalay iyo inaan la aqbalin maxaa u dhexeeya? salaaddu inay asaxday iyo inaanay asixin maxaa u dhexeeya? kow, salaaddu haddii arkaanteeda iyo shuruudeeda iyo waajibaadkeeda iyo waxay lahayd lala yimaado sidii fiqigu qorayay, mu'minna a tahay, waa asaxda min xayثu الsixa. haddii waxaa wax ka dhiman yihiin ma asixin oo ruknaad ka tagtay ama meelaa qiblada ahayn baad u jeesatay ama wixii ay ku asixi jirtay wax ka midaad daloolisay ma asixin. laakiin su-aal labaad bayna imanaysa markaa, ma la aqbalay mise lama aqbalin markaynu idhaahno macnaheedu waxa weeyaan ajar ma ka helaysaa mise ka heli maysid? ajar ma ka helaysaa mise ka heli maysid? oo xaggee wax iska dhaafsiisan yihin? nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam dad saf ku wada jira oo salaad tukaday oo dabeetana salaadoodii aanay sinnayn mid baa laga aqbalaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cushruha, salaadda cushurku waa 1/10, waa 1/10 ama waa 10%. mid baa laga aqbalaa 10%. marka waa tukatay, salaaddiina way asaxday, laakiin ajarka waxaad leedahay markay ajarka timaado 10% baad leedahay. oo waa maxay? waad tukanaysay laakiin maantao dhan waad isu sheekaynaysay, suuqaad maraysay oo waxbaad dilaalaysay oo cid kalead ka warramaysay, oo waxaa laga yaabaa intaad soo jeeday inaanay in badan ba ahayn. intaad ila salaadda waxaa loogu talagalay inaad ilaahay la hadasho o weynayso. qofka mu'minka ahi ilaahay buu hortaagan yahay, dabeetana rabbuu la hadlayaa. ilaahay wuxuu ku leeyahay haddaad aniga toos iila hadlaysaana waa kuu jawaabaya. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markaad tidhaahdo xamidanii cabdii baan odhanayaaba rabbi leey, addoonkaybaa ii mahadnaqay, ima hadiyey. alraxmaan alraxiim markaad tidhaahdo ahnaa calaya cabdii baan odhanayaa, addoonkaygiibaa i ammaanay. maaliki yowmiddiin markaad tidhaahdo majadanii cabdi, addoonkaygiibaa i weynay. ilahay wuu kula hadlayaa. laakiin haddaanad ogeynba inaad faatixada akhriday iyo inaad akhrin alxamdulilah rabbi alamin, laakiin xisaabtaadaad iska wadatay. imaamku markuu assalaamu calaykum yidhi unbaad baraarugto, adna assalaamu calaykum tidhi. nin shaydaan la yidhaahdo oo khatar ah oo u gaara salaadaha inaga shaqeeya. iminka haddaad cunno cunayso wax kale ma ka fekertaa mise cunadunbaad hamtaa ku haysaa? fekeri maysid. haddaad tv-ga daawanaysa wax kale ka fekeri maysid, waa iska daawanaysaa waxa uu sheegaya unbaad arkaysaa. hadduu qof kula hadlaya wax kale ka fekeri maysid. salaadda markaad u kacdo unbaad dunida lasoo ururinaya. markaad waxa kale qabanayso shaygaa camalka aad hayso unbaad ka fekeraysaa. shaqo kale markaad hayso o dhan, haddaad imtixaan ku jirto isagaad ka fekeri, haddaad shaqaysanayso shaqadunbaad ka fekeri, waxaad qabanaysa kalead ka fekeri. mar allaale markaad salaadda isu taagto ayuunbaa qolo kale imanaysaa, una markaas unbaa adduunka lagugu soo ururinaya. idan saa daraaddeed nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam mid baa tukado salaaddiisa 10% leh, mid baa le baa la yidhi tusuc aha. tusuc waa 1/9, waa xawaalay less than 13% meelahaasuu noqonaya. mid baa le thumunkeed baa la yidhi 1/8, 1/8. mid baa le ilaa iyabuu nabigu soo gaadhsiiyey nisf, mid baa le 50% salaaddiis. idan salaadda waynu ku jiraa oo safka waa wada taagannahay. cinda allaahi se waxaa la qorayaa isku noociyaad maaha. salaaddiina way asaxdo, shuruudeedii waynu samaynay, laakiin markay ilaahay agtiisa joogto isku nooc noqon mayso. marka waxaa laga yaabaa nin 20 sano tukanayey mid sanad tukanayo saadiq ahaa inuu kaaba ajar badan yihi. sanadkiisu sanad midida
oo uu soo jeedo rabbi uu caabudayay. idan anigu weligay baan soo waday kan yari muxuu sheegay weligaa qof aan yaraysanin muslima garan maysid cidda laga aqbalay garan maysid. adigaagii 30 sano soo waday waxa laga yaabaa inaad 10% weligaaba waday ama 0 ba qaarkood ay ku dhaceen. mintida hadduu yimaado 50-50 laga aqbalayo shantaadii maalmoodba maalin isagaa shantaadii sannadoodba sanad isagaa bay noqonayaan. idan wuu kaa badinayaa. idan markaynu qubuulka ka warramayno waxaynu ka warramaynaa cama fi lquluub waa mar waxaynu ka warramaynaa mawaanic khaarijiya inaanay jirin wax manciyo oo joojiya salaadaada in la aqbalo. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حليه 3 لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا حديث ابن ماجه حسن كا صدح صلاة دودة تاكاين لك مدحودة بما دافته مدنا وكسونو صلاة دمر كينو دهنا لما أقبلين معناه موحوية وتسوع لنيسا مايا أجزاءت وقدي صلاة نمدي لقو قبصن ما يا آخر لقو ملا صلاة دي متكنين آخر أنت لقو سوى تقال لورن ما يني كريم حي صلاة متكنين لكن ده قبصة شقورة ما أسعنين 1 هذا شرور رصته 1 لأن هذا الصلاة بي لبس صلاة دون أنت وده حيث تكفر ما قبلها صلاة كلا دم بجد كام يدو تذكر بس سؤال سويدية ونيو صلاة ولا بس صلاة كل حد يدم بجمايرسة مثلا رمضان إلا رمضان محي مايرسة أما جمعة إلا جمعة محي مايرسة ده تادو مدي يرونا قصة هذا واحد بدل ما يمايرد مركي هراد 10% يا 5% يا 15 مركي هذا سكو شابا يستال لغاية يابا إني محي شنتي وحوجا مايدو جمعي وحوجا قصة هذا برد مايدو رمضان تنتي صو هذا برد مايدو ده دال كبادي صو والغاية يابا إني إسبير سطو لكن النبي يقول عليه الصلاة والسلام صدح صلاة دودة مدحود الله ما ضافيه رجل أما قوما وهم له كارهون بنبور نندت شوب سكجا هيستو صلاة كي يجوا عن ربين صلاة ديس وخطر ده ملاك دولة دنيا ضدن قصب كوه هيستانا مدام أيانو ملاين يا ده دي صلاة قرا هل صلاة كيكو هيستادن وعملينين كأن أمة دانس كاف ضوبتينا ملا مدام أيو لكن حديث كناس كيسوح شيء من أما قوما وهم له كارهون ننكدد إمام النقضة يقول نعب وان ربن ولذلك أئمة مساجد يرجع مساجد التكية وحكى وحف يعني إنه قلوب تدتك إلاليه ودتك وقف الرال لكيهن إنه النقضة محي قف كدتك تكينية ومساجد كينان لغة يسننون maxaa ila qorsa karama tiraahdaa maxaa tiraahdaa inaan iska afduubanine inay muslimku wada socdaan qulubtu inay wada socotaaba ka muhiimsan waxa kaloo dhan sida ogeed buu nabigu yidhi wamra'atan baatat wa zawjuha calayha saakhitun gabadh hooyatay iyadoo ninkeedu u cadhaysayayana wax laga aqbali maayo idan dumarka muslimiinta waxa saaran inay isku dayaan zawjkeeda inay raali geliso وامرأة عست زوجها حتى ترجعنا حديث كلا شيء كصدحات وحاو نبغو شيء عليه الصلاة والسلام كصدحات وحاو نبغو شيء وأخوان متصارمان لبا ولا لو كلا الله اسكلا الله هذا حديث كم حو شيء قف كسته وإلهي الرمية قف كسته لا يشرك بالله شيئا marka acmaasha ilaahay loo bandhigo khabiisaha iyo meelahaas oo kale in ilaahay dambiga dhaafo xadiiskii sheegay saxiixaynka ku yaalay laba mooyaane buu nabigu yidhi labadaasi waa kuwee laba is haysta iyaga waxa la yidhaha andira haadayni xataa yastalixa labadaa iyaga dib iga dhiga baa ilaahay yidhahda intay ka heshiinayaan idan akhwaan mutasaarimaan haddaynu isu wada cadhaysanno oo iska laalaadno cibaadada inaga xumaanaysa haddaynu rabno in cibaadadeennu cinda allahi ay maqbuul noqoto وين هذا قف قلب السليم لا وين هذا هاتا قف كمؤمن كاهي نبي الله إبراهيم حكو دعي سني آخره وحويدي سني قلبي سينا الله كردقا محي قلبي عافمات قبا سيدا وقيت وحيابا جرى عملكي إن قبورينية أما إن عند الله مقبول نقضى حمينية مثلا القرآن كإلهي وحلي يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وركوا إيمانك لغا هلايا وحا إلهي درتي ولا بحدين
adiya dhib iyo galad sheegase ha ku burinina haddaad intaad wax bixiso un ka daba hadasho ninkaa beraan si fiican u galay qoladaa biil baan u diraa maalin kasta lacag joogtaa baanse ha iska burinin waad dirtay ajar baad doonaysaa ilaahay baad la baac mushtaraynaysaa qofkan maaha qofkaad wax ka doonaysa haddaad adduunye ku doonaysa waa halkeed ood salada isna markiisaa ku abaalgudo laakiin asalka qofka mu'minkii waa maxay wuxuu bixinayo ilaahay buu kula tijaaraysanaya waxay la mid tahay lacagtaad bangiga dhigato markaad bangiga tagtay accountka lacag ku shubato sooma rumaysnidan adigu leedoo account ku shubatay tanaad baxsatayna waxaad rumaysan tahay accountka aakhira inaad ku shubtay saa daraaddeed waxaad rumaysan tahay inay tahay kayd adigu aad kaydsatay cid kale waxaad siisay maaha qofka muslimkii saasuu u fakeraya waxaan ula baxay inay tahay kayd uu isagu meel dhigtay haddaba kaydkaaga ha iskaga burinin baa ilaahay leeyahy inaad sheegto oo aad mani aad dadka ugu gallad sheegato amase adiya iyo dhib inaad ka dabageyso sida awgeed waxaan leenahay ayuha alaxiba acmaasha in laynaga aqbalaa maalan nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninka caraaf u taga kuwan faalfaaliya waxaa kane rumaysta wuxuu sheego maxay xadiis riwaayaadka qaarkood waxay sheegayeen inaan 40 yowman maxay camalkiisa la aqbalin oo 40 casho camalkaaga la aqbali maayo haddii la yidhaha miyaad salaadaha iyo waxba iska diraysa maya waxba waad tukanaysaa waayo dimadaadaad rabtaa inaad beri yeesho tajzi'uk qadaa lagugu yeelan maayo laakiin dee ajarkii la rabay ayaad iskaga lugoynaysaa halkaad ajar ka heli lahayd ayaad ajarkii nuqsaaminaysaa haddaba ayuha alaxiba waxaynu u baahannahay cibaadaadkaynu ilaahay ula imanayno subxaanahu wa tacaala inaynu xumaha ka ilaalino inaynu qurunka ka tirtirno inaynu maxay qalbigeennu uu noqdo qalbi soo jeeda waayo maa fi lquluub xataa inaha la aqbalaya waxay ku kala gedisayin baynu nidhi waxa qalbiga ku jira oo maalan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay dirham ayaa wuxuu ka badiyey sabaqa dirhamun 100,000 dirhamin buu nabigu yihi hal dirham oo sadaqa loo bixiyey ayaa ka fadli bato ka dheereeyey 100,000 oo dirham buu nabigu yidhi 100,000 oo dirham si uga badanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay culammadu leeyihin dirhamkan uu sheegay maalan markaad soo qaxaysay ama markaad soomaaliya ka qaxdeen adigoo aan waxba haysan oo $10 sita xoolo waanay kaaga dambaynin oo waddana aad garanayn joogo dee 10kan lexe jeclo ka badan boqolaalka kuwa haystaa kaaga jira haddii aad mid 5 u dhiibto waad la naf qaybsatay markaa weeyaan nin balaayiin iska haystaa hadduu in yar ka xoobiyo uu mid u tuuro 100,000 isaga agtiisa $5 qiimahay kugu joogtay kuma joogaan maxay boqolaalka kani idan xaaladda aad ku sugantay iimaanka qalbigaaga ku jira ilaahay sidaad u weynaynayso aakhira sidaad u hunguraynayso waxaasaa waxay qiimo u yeelayaan cibaadaadkaad la imanaysaa intay leegtahay markaa camalka lama yaraysto dirham ha noqdo ama 2 ha noqdo ama ha ka batee camalkaaga ha yaraysanin xataa waxaa axaadiistu tilmaamaysaa tawxiidkeennu sow laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ma wada lihin dhammaanteen sow dad muslimiina ma wada lihin xataa laa ilaaha ila allahdeenu isku qiimo maaha aakhira markaynu tagno isku qiimo maaha waayo axaadiista nebigu waxay sheegaysaa calayhi salaatu wasalaam qaar aakhiro tegey oo tawxiidsaday laakiin dembiye galay dabeetana dembiyadii ay sameeyeen lagu ciqaabay oo cadaabka galay laakiin cadaabka ku waari maayo horta laa ilaaha illa allah mar kasta waxbay taraysaa waayo cadaabka inaad ku waarta habay kaa ilaalinaysaa gaalkaa cadaabka ku waaray qofkii muwaxidka ahaa xataa hadduu cadaabka galo wuxuu ku jirayaa maxay muddo laakiin dee muddadaa ilaahay garanaya 1 milyan oo sano haddii lagu cadaabo ka war haddaad tidhaahdo kolley waa tawxiidsanaysaa naarta waad ka soo boodiye boodisteedu ma fududa marka walciyaadu billaah ilaahay baan ka magan galaynaa laakiin waanad ku waaraynin waad ka soo baxaysaa aakhirkii waxaa kale uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam mid inta la soo taago la keenayo 99 sijilla 99 fayl baa la keenaya oo dunuubuu galaya kan ma gashay kan ma yaa rabbi haa buu leeyahy waa qiranaya waxaa la leeyahy wax xasano aanu kaa dulminay miyaad garanaysa wax xasanaadkaagii maqan oo aan meesha ku oolin miyaad garanaysaa may buu leeyahy yaa rabbi
xadiidku wuxuu leeyahy ilaahay baa wuxuu ku yidhaahdaa xasanaanu ku haynaa weli mid baa kuu hadhay dabeetana bataaqaa la keenaa buu nebigu yihi waa kaadh sijillaadka waxaa la yidhi mashriqiya maqrib bay sijil weliba uu taxan yahay tani laakiin waa kaadh waa bataaqaa la keenaa bataaqadaasi waxaa ugu qoran tawxiidkiisii dabeetana waa la saaraa miisaanka wuxuu xadiidkaasi tilmaamayaa inuu bataaqadaasi waxaan oo dhan ay ka cuslaan doonto yacni waxaa meesha ka cad dadkii wada tawxiidsaday inaan tawxiidkoodu isku qiimo goynin qaar dunuubtii ay galeen ee zinadii iyo rabshadihii iyo wixii ay galeen inuu wada maydhi kari waayey dabeetana in naarta lagu soo daahirinayo qaarna waxaa la tilmaamayaa tawxiidkiisa culayskuu leeyahay ilaahay siduu u weyneynayay uga cabsanayay ee rabbi qalbigiisa u deganaa tawxiidkiisaasi inuu miisaan weyn yahay oo dunuub badan uu la degayo tawxiidkaasi haddaba waxaynu leenahay acmaasheenna waxay u baahan tahay kow atanqiya intaynu nadiifin karna inaynu nadiifinno waxaynu cunayno inaynu xalaal ka dhigno waxaynu huwanay inaynu isku dayno inuu xalaal noqdo dadka inta badan how much you earn un baynu isweydiinaa waxay doonaha kugu soo galo laakiin waa mushkilad waxay ahayd inaad isweydiiso maxaad xalaal xoogsatay waxa kale aakhira iyo adduuntoona anfac ma leh maxaa xalaala si cibaadaadkaaga aanay u qarribin si diinkaagu aanu u xumaanin xalaasha inaad ku dadaashid ducadaadu si ay cinda allahi maqbuul u noqoto waxaa habboon markaa acmaashaynu samaynayno o dhan sumca iyo riyaa iyo istus iyo ismaqashiin iyo waxaasoo dhan inaynu ka dahirno inaynu ka dhigno acmaal lilaahiya ilaahay dartii un waxaad u samaynayso waanada cid kale waxba kaga raadacaynayn waxaynu u baahannahay acmaal aynu aqoon u leenahay oo marka hore shuruudu sixa soo hesha oo cinda allahi maqbuul noqon karta inaynu noqonno walidaalika ayuha alaxiba qur-aanku wuxuu inooga warramayaa dadkii saalixiinta ahaa iyo ambiyadii oo iyagoo camal wanaagsan samaynaya warwarku uu hayo nebi ibraahim oo kacbada ilaahay dhisayaa ilaahay ka warramay iyo nebiyullaahi ismaaciil waa laba nebi oo isdhalay shaqaday wadaanna waa maxay waa inay kacbada dhisaan waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti waismaaciil rabbana taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim rabbana wajcalna muslimayni laka wamin duriyatina waxay leeyihiin oo ilaahay ka warramaya waxaad dadka uga warrantaabaa ilaahay leeyahy markuu nebi ibraahim qawaaciddi seeskii guriga baytullaahi alxaraamka seeskiisii markuu dhisayey isaga iyo nebi ismaaciil isagoo dhisaya ilaahay kacbadiisiibuu wuxuu haddana leeyahy rabbanaa taqabal mina ilaahu naga aqbal idan xataa haddaad masaajid dhisto ilaahay bari in alla kaa aqbalo haddaad dhisto la aqbali waayo dee waxba ku tari mayso laakiin asalku waxa weeyaan in maxay aada rabbi weydiisata inuu kaa aqbalo ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa maryamo hooyadeed nebiyullaahi ciise hooyadii maryamadaa hooyadeed waa nebi ciise ayaydii islaantaasi islaan saalixada bay ahayd id qaalat imra'atu cimraana rabbi inii nadartu laka ma fii baطni muxarara fataqabal minii inaka anta asamiicu alcaliim bay leedahay ilaahayow wixii maanta calooshayda ku jira bay leedahay adaan kuu gaar yeelay ilmihay umuli doonto bay waxay u gaar yeelaysaa inuu ilaahay gurigiisa ka shaqeeyo shaqo kale inaanay u diri doonin ee fataqabal minii bay haddaba leedahay ilaahu iga aqbal anugu saasaan yeelayaaye rabbow iga aqbal bay leedahay waxaa qur-aanka ilaahay inoogaga warramayaa nebiyullaahi ibraahim abulambiyaa nebiyullaahi ibraahim oo ilaahay baryaya wuu tukanayaa ilaahay buu waxaan u weydiisanayaa salaadda mid ooga in rabbi ka dhigo salaadda mid tukada maaha mid ooga oogistu yacni waxa weeyaan salaaddu waxay u baahnayd oo dhan mid u dhammeeya rabbi ijcalnii muqiima asalaah wa min duriyatii rabbana wataqabal ducaa buu leeyahy ilaahayow waxaad iga yeeshaa mid salaada ooga aniga iyo dhashaydaba ilaahu ducadaa iga aqbal buu leeyahy ducadu rabbi raba inuu ka aqbalaa waa maxay salaadu inay noqoto salaad maqbuul cinda allahi noqonaysa idan ayuha alaxiba
alambiyaa wasaalixuun hadday sidaa u cabsanayaan oo rabbi weydiisanayaan inuu ka aqbalo, innaga maxaad u malaynaysaa marka? sidaa ogeed waxaa habboon qof walba cabsidaasi inay ku jirto. waxaa habboon qof waliba inuu isku dayo camalkiisa inuu barax tiro, uskaga inuu ka reebo, inuu dhilo. waxaa habboon qof waliba camalkiisaasi inuu baryada ilaahay u badiyo in rabbi ka aqbalo. ilaahay inaad in badan barido in lagaa aqbalo. sidaa ogeed ilaahay qur-aanka qaar buu leeyahy qul anfiquu طawcan aw karha lan yutaqabala minkum inakum kuntum qowman faasiqiin baa ilaahay yidhi. qul anfiquu bixiya baa la yidhi, طawcan aw karha, ama qasab ku bixiya ama idinkoo ogol bixiya. lan yutaqabala minkum baa ilahay yidhi, alla idinkama aqbalayo. waa gurub munaafiqiin ahaa. dabeetana waxaa la leeyahy xoolaha ama idinkoo ogol bixiya ama idinkoo aan ogolayn oo qasab ha laydinkaga qaado zakadii oo ha laydinka qaado. lan yutaqabala minkum, laydinka aqbali maayo. waayo inakum kuntum qowman faasiqiin baa ilahay yidhi. dul faasiqiina ba ahaydeen, fisqigiina daraaddii looma aqbalayo. wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ila anahum kafaruu biاllahi wabirasuulihi walaa yaatuuna الصalaata ila wahum kusaala walaa yunfiquuna ila wahum kaarihuun. maxaa loo aqbali waayey nafaqaadkooga? waxay ahayn kuwa alla iyo rasuulba ka gaaloobay baa la yidhi. salaadana waxay la iman jireen iyagoo caajisa, waxa markay wax bixinayaan iyagoo necab bay bixin jireen. idan ayuha alaxiba, ilaahay wuxuu leeyahy afa aaminuu makra allah falaa yaamanu makra allahi ila alqowmu alkhaasiruun. waxaynu u baahanay markaa ilaahay fadligiisa waan rajaynaynaa, waa damcaynaa, waa dadaalaynaa, baryadeennu si ha badato. nebi ibraahim muxuu lahaa isagoo tawxiidsanayu haddana wuxuu leeyahy wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam. waa tawxiidsanayey haddana wuxuu leeyay ilaahayow aniga iyo intaan dhalay inaanu sanamka caabudno rabbow naga fogee buu leeyahy. saalixiintu ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa inay cibaadada la imanayeen, habeenkii intay istaagaan inay tukanayeen, haddana warwarka inay qabeen. waaladiina yabiituuna lirabbihim sujada waqiyaama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إلهي وحلي ميي سمين كهبين كي تاغن isagoo sujuudsan iyo isagoo taaganba aakhiro ka cabsi qaba, ilaahay naxariistiisana rajaynaya. ilaahay naxariistiisana lagama quusto, ilaahay naxariistiisana waa la rajeeyaa. waladii aطmacu an yakfira lii khati'atiida waa la baryaa oo waa la rajaynayaa. cabsidana waa jiraysaa. markaynu mas'aladan fahamno, waxaa fahmaysaa la socota qofka muslimkii mahmaa camil in camalkiisu la yaraado, inaad alla agtiisa ka taagin oo moodin inaad wax badan qabatay, inaad isku daydo inaad ilaahay weydiisatay inuu kaa aqbalo, inaan guruur iyo cujbi kugu dhicin. acmaasha qalbiga ku dhacdee ah alcujb, inaad isla weynaato, ama alguruur, inaad adigu ismadax martidba oo istidhaahda wallaahi waxaa tahay adigu nin wadaad oo masaajidda ku ag xidhan oo dadaal badan oo adnaad jannada isasiiso dadka kalena aad naarta ku gurtaa. waxba kama jiraan, waxba kama jiraan. dadka ciddii alla wax ka aqbalay ilaahay baa garan. waxaynu se u baahannahay qof kasta oo rabbi si dhaba u garta, wuxuu nimco siiyeyna gartaa, camalkiisa wuu la yaraadaa, wax weyn kulama noqonayo. walidalik baa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa caaisha waxay ku tiri ilaahay rasuulkiisiiyow, adiga dembigaagii hore iyo kii dambaba waa la dhaafaye maad iska nasatid. habeen oo dhan intuu taagnaada nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa caguhu barareen gomadaha. caaisha markaa waxay leedahay adiga dee dembigiiba lagaa dhaafiye maad nasatid. wuxuu caaisha nebigu ugu jawaabay afalaa akuunu cabdan shakuura, addoon mahadnaqa miyaanan noqonaynin? ilaahay hadduu waxaasoo nimco ay siiyey yaa rabbi thank you miyaanan odhanaynin? ilaa waad ku mahadsantay, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. waxaa nabiyullaahi maxamed loo tilmaamay walaa tamnun tastakthir, ay laa tamnun bicamalika calaa rabbik tastakhiru.
waxoogaaga aad shaqaysato ilaahay ha ugu manno sheegan baa la yidhi iyadoo ay kula badan yihiin weligaa iska dhaadhicinin wax badan baad qabatay haddaba ayuha alaxiba acmaasha in laynaga aqbalay maxaynu ku garanaynaa waxay culammadu yidhahdeen horta ilaahay baa og laakiin calaamaad baa jira bay yidhaahdeen haddaad aragto isti'naas la rajeeyo in alla kaa aqbalay maxaa ka mid ah waxay yidhahdaan haddaad aragto cibaadaadka oo cibaadaba cibaado kuusii furfurayso adigoo xagga cibaadada u koraya haddaad aragto waa astaan fiican oo loo rajo qabo bay leeyihin in kuwii hore lagaa aqbalay haddaad aragto adigoo dib u sii socdana khatar adigoo dib u sii gurmayo dhanka kale u socda sida ogeed baa ilaahay wuxuu leeyahy faama man acطaa waاtaqaa wasadaqa biاlxusna fasanuyasiruhu lilyusraa baa ilaahay yidhi ninka bixiya ee alla ka cabsada ee tawxiidka rumeeya aakhiro rumaysta kaas waxaa la yidhi fasanuyasiruhu waxaanu u fududaynaynaa tii fududayd ta fududay waa diinka islaamka oo dhan diinka islaamka oo dhami ilaahay qur-aanka wuxuu in badan ku sifaynayaa inuu khafiif yahay inuu yuriidu allahu bikum اlyusr walaa yuriidu bikum alcusra baa la yidhi ta fudud baa loo sii fududayn marka adigoo xagga wanaagga u koraya haddaad aragto istabshir in shaa allah waa waxaa laga isti'naasi karaa in wixii hore alla kaa aqbalayo adigoo dib u guranaya haddaad aragtana wa ama man bakhil waاstagna wakadaba biاlxusna fasanuyasiruhu lilcusra ninka bakhayla ee kaaftooma alle ka kaaftooma ee aakhira iyo wanaaggaba beeniya ama tawxiidka beeniya kaana ta adag baa loo fudaydiyaa baa la yidhi gaalnimada adag iyo macaasida iyo rabshadda kuwaasaa loo fudaydiyaa ilaahay wuxuu leeyay wayaziidu allahu aladiina اhtadow huda kuwa xagga rabbi u hanuuna kuwa hanuuna ilaahay hanuun buu u kordhiyaa waladiina اhtadow zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum waxay culammadu yidhahdeen markaa ihtidaagaasi waxa uu tilmaamayaa qofkii acmaashii markuu isagu la yimi waxoogaa oo sii koraya haddaad aragto xagga khayrka usii socda wuxuu yahay qof alla hanuuniyey marka waa qof acmaashiisii hore cinda allaahi wax la aqbalay ee u ekaatay waxaa kaloo diinku ina baraya acmaal kastoo aynu samayno inaynu jabraanu naqs inaynu kabno iyo walilictidaar istikfaartu bay dhahay kahratu listikfaari lijabraani الnaqsi walilictidaari min sigari badaacatik bay yidhaahdaan istakfuralaad oo aada badisa macnaheedu waxa weeyaan camalkaaga goddoloolooyinku lahaabaad rabtaa inaad ku kabto iyo inaad ilaahay u cudur daarato oo maalan salaada markaynu ka baxno maxaynu nidhaahnaa ugu horeeya astaqfir ullah astaqfir ullah astaqfir ullah 3 goor in la istikfarsadaaba ugu horeysa salaada markaad ka baxdo oo salaaddu waa cibaade dadku inta badan waxay dee yaqaaneen astaqfirullah in la yidhaha marka dembiga la galo soo maaha markaad cibaado ka baxday baa waxa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa maxay astaqfirullah waa maxay istikfaartanaad marka la imanaysaa waxay culammadu yidhaahdaan waxay tahay lababa weyt salaadaadu dee 10% 20% meelaha hadday dhacdo intii kale ilaahu ay qabsanin baad leedahay ma wada hagaagsanayn wixii aan sameeyeye rabbi inaanu kuu qabsanin oo aad istikfaarta ku kabtaa baad rabtaa waxaad kaloo rabtaa haddii qof uu wax ku siiyo maalan oo abaal weyn kugu leeyahay oo qofkii abaalka kugu lahaa baad maalinu yeedho waad casuuntay ama waxoogaa yaroo hadiyada baad siisay laakiin waxaad ogtahay waxaanaad bixisay inaanu u cuntamin u qalmin wixii uu qofkani abaalku kugu lahaa maxaa la sameeyaa markaa cudurdaar baa lagu kabaade yacni waxaad qofka u sheegaysaa adigu taagtaadii inaad soo dadaashay laakiin inaanay intani ahayn maxay intuu mudnaa in la siiyo marka waxaad leeday waa ka cudur daaranaynaa dee wixii kuu cuntamayay kumaanan siinin ama wixii kuu qalmayay laakiin uun waa intii aanu markaa waxa hadalkani waa ku kabisaad ku kabayso waxoogaagaad bixisay inuu maqbuul agtiisa ka noqdo at least oo aanu odhanin ninkii aad abaalkaa ku lahayd ma intan buu kuuga abaalgudayaa ayaad warka raacinaysaa
ilaahay abaal badan buu inugu leeyahy wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha ilaahay wuxuu nimco ku siiyey ma tirin kartid waa jirtaa bini aadamku ma cabasho waayo laakiin iminka waxaa laga yaaba inaad leedahay sharcan waayo iyo lacag ma haysta iyo waa laakiin waad caafimaad qabtaa bal dhakhtarka tagoo dadka maalqabeenka ee buka weydii maxay u baahan tihiin waxaa laga yaaba waxay hanti haystaan oo dhan inay siisan lahaayeen ina maxay wadnaha xanuunaya inuu ka kaco laakiin adigu wadnahaaga iska bugbugle habeen iyo maalin baa bam kaa shaqaynaya markaad hurdiya markaad maba ogid wax weynba kulama aha caafimaadka waxaan ku haysanaa waa gaajoorayna abad la soo taagantay yani markaad nicmada dareemi weydo inta yara nuqsaantee ku haysata unaad dareento bini aadamku waa caynkaa bini aadamku qof way adagtahay inaad aragto qof bini aadam intuu kuu yimaado wuxuu nimco helay kaaga warramaa qof wali waa bal warran marka tiraa wallahi maanta waxay ku dhacay moogtay buu ka bilaabaya yaad ka ashtakoonaysaa ma rabbiga qof waliba wuxuu wadaa un inta yar ee mushkiladee qabsatay ayuu ka warramaya laakiin asalku wuxuu yahay maxay nicmadaa badan ee ilaahayna siiyey inaynu ka mahadnaan marka waxa weeyaan salaada markaad tukatay waxaad leedahay ilaahayow wixii aad xaq iga mudnayd xaqa tuqaatihi lama imanin intaasaan la imay ilaahu dembigayga dhaaf baad leedahay istikfaartan aad la imanaysa macneed waa caynkaa cibaadaadkao dhan baa qur-aanku inoo tilmaamaya inaynu ku kabno in badan oo ka mid a مثلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم عرفة ومالمه ugu khayr badnaaya oo maanta oo dhan dadku waa bannaan taagnaayo ilaahay baryayay ayaa ilaahay wuxuu yidhi markaa carafa ka soo dareertaanna halka dadku ka soo dareeraya ka soo dareera dabeetana wastakfiru llaha istikfaarna ku dara baa la leeyahy ayuha alaxiba ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamayaa dadka saalixiinta ah kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun baa ilahay yidhi habeenkii in yar bay seexdaan baa la yidhi dad saalixiin oo ilaahay ka warramo jannada cuyuunteeda iyo nicmadeeda haystaa kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun maxaa lagu xigsiiyey wabilasxaari hum yastakfiruun habeenkii waa taagayin baa la yidhi waqti suxuurka markay gaadheen salaada subax soo dhowdahayna istikfaartay bilaabaan iyagoo caawo oo dhan salaad tukanayay ayay markaa waxay dib u bilaabaan maxay istikfaarta ilahay wuxuu ina leeyahy faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik bale nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam 23 sannadood buu diinta islaamiga inuu hirgeliya u dadaalayay jihaatamayay wax kasta oo qof bini aadami soo maro nolosha uu soo maray hadday dhulkiisoo laga saaratay hadday dagaaltay hadday gaajatay hadday rabshad wax kastoo bini aadam ku dhaca ayaa soo maray dabeetana ilaahay wuxuu ku yidhi marka aada guusha gaadho ee ilaahay nasrigiisu kuu yimaado ee aada aragto dadkoo diinta koox kooxu soo gelaya istikfaarta badsa baa la yidhi wixii aada soo shaqayso o dhan istikfaar ka dabage saa daraaddeed baa suuraddii u dambaysay qur-aanka soo degtay ka suura ahaan waa idaa ja suurad isku dhan aayadaha soo degay iyada dabadeed laakiin suura kaamila dabadeed ma soo degin ilahay wuxuu leeyay idaa jaءa nasru اllahi wاlfatx haddii uu kuu yimaado ilaahay guushiisa iyo furashada rabbi hadday kuu timaado oo wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja oo aad aragto dadka oo koox kooxu soo gelaya diinta bini aadamku markuu guulaysto muxuu sameeyaa kalaa ina alinsaana layadغى an ra'ahu wuu kibraa inta badan bini aadamku markuu nicmada hele wuu kibraa bal aadanaha u fiirso maalintii xorriyadda maalintii caynkan maxay dowladuhu sameeyaan xooggooda iyo ciidankooda iyo khudbado wada ah waa halgannay baa la qaadaa de barhbadhaadhnaydaa la qaadaa soo maaha cid istaakfuralaysato o ilaahay u toobad keenta miyaa aragtee nebi maxamed markuu maka furanayay makadii laga saaray wuxuu soo galay isagoo neefku fuushanaa dushiisa madaxiisa uu gaadhi ku dhadhow yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala isu dhuldhigaya ilaahay wuxuu ku yidhi markaad guusha hesho waa goorma gaaloo dhan markaad ka guulaysato ee diinta ilaahay kor yeelo ee dadku ay diinta usoo galaan koox koox awal qof baa soo islaamayay wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja aad aragto dadkoo diinta koox koox usoo gelaya markaa maxay samey baa ilaahay yidhi maxaa ku xiga fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba ilaahay u tasbiixso adigoo xamdigiisa ku dhehaya subxaana allahi
ونفي وإلهي أتحماك هفيسو الحمد لله وأمان وإلهي أمان ودن السجيسو استغفار كنا وادق ضعف كاغا الشيغانية إذن أمان هل كيودن بيسي ويان إلهي وحانو عنت منين نقائص ودن كربتد محامد كمال ودن دون نسبيسيد كدبنا ضعف كاغا قرتدو تراهدي أنا وتوبت كينيا أنا واستغفار سنية أو توبت كينيا ساسا النبي الله فري عليه الصلاة والسلام ولذلك مركز سورة داني كسو دكتي كدب وحورن شري سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أي الركوع ده أي السجود ده يورن شري نبي عليه الصلاة والسلام إذن أيها الأحبة أعمال كلا لغو كبا مثل المحل ينيدي صون كي مركز صونتان زكاة الفطر هذا نبحية زكاة الفطر قاسم حي كيني سابا ليلي جبران النقص وحي رمضان تدحدي إذا كان دعي أن ذنوب أما نقصان كو دعي كو كبابا ليلي صلاة دي بعد يرسه ويدي محل يلي كده بقى لبس سجودو دا دي هي فوتر دول كو دغايسو وجبران النقص نقص غاغي با ديب وكبايسا صد دوبا ايها الأحبة درسيغاني wuxuu ku kooban yahay markaa kow inta wax qabanaysaa yaan cujbi iyo quruur ku dhicin ilaahay baa og inta la aqbalay kaasi waa mid dadaalka inaad badiso oo haddii alla wax kaa aqbalo waxa la hubaa camalka kalena inuu ku hagaagayo adduunya aakhiraba inaad guulaysanayso acmaashu marka in la aqbalaba inta kale alla sii fudaydiya saalix ka sii dhiga se waxaynu u baahanay laba halba inaynu ku dadaalno كو قضية العلم إن كده الله وحنا كأصحية وادب أفرت السندود إن تكون يسي إلا هدنا أنا دقون سلاد ما يكون برتا هو ما لغة أقبلان كرهن وادب مسألة العلم عمل كات سمين يسوينا تسكت إذا أقولنا دويالته كلا بعدنا وامحي وحيابها عمل كأمبورية أما نقصامية أما أديدا إن لا أقبله إن تكشف فكرتي isku daydo intaad ka jafi kartidba inaad ka jaftid ka saddexaadna istigfaarta iyo tawaaduca iyo rabbi isu dhuldhigiisa inaad badsatid ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala intaynu la nimayna allah inaga aqbalo acmaasheenu cinda allahi tii maqbuula in alla ka yeelo waxaa acmaasha burinaya in ilaahay subxaanahu watacaala inaga faydo qalbigeena in ilaahay subxaanahu watacaala nadiifiyo saafi ka yeelo kuwa muslima oo islaamnimadoodu dhabta ku dhinta in alla inaga yeelo sala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin